Hello, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صحابتي إذا aad ka quruxda badan waxaan leeyahay soo dhawaad mar kale iyo jimco wanaagsan insha Allah tacaala sida hore u ballansaneen jimco walba waxaan sameynaynaa video aan laakiin ugu magac daray sameynta jimcaha insha Allah marka jimcaha waa ogtiin waxaa sameynaa mar walba kooxda guuldarada ugu weyn ee soo gaarto horyaalada Yurub Vande kooxda marka guuldarada weyn isbuuc hore waxaa sameynaa Manchester United oo lagu dhuftay 7-0 hadda insha Allah waxaan sameynaynaa kooxdan RB Leipzig lama aqaan kooxaha todobooyinka wax laga siiyay maaqa 7 intaan next week aan socdo insha Allah tacaala waa arkaynaa marka wixii kooxdii kale kooxdan horta insha Allah waxa iisoo micnaha like iisoo suggest gareeyay ama iisoo bandhigay yar oo asxaabta kamid ah waxa la yahay oo maasanta brother way hoos baxsanad wallahi waa ilaaw in laga badiyo maasanta doob ku bas waa ilaaw marka shaxda hadda saafiri shaxda waa xogaar waa dhisanta kaliya booskaas dubaha bis oo yarkan 7 bis naga khaldan asna waa inaan iska saxeynaa Timo Werner nooma dheelaayo waa bedelaynaa haddaysan wax kale isbedelin kan garab dheelsiiro waa mafaante garabku xogaar beeskiisa oo jeedaa waa 9 marka booska dubaha rabnaa inaan iska saxno meel kale ma aadino inkastoo lacag adiga 120 milyan 160 milyan maleyna lacagta markaas ay ku rabto kooxda Ashraf Hakimi PSG ka doonanay asaan isleeyahay boosku ku xali doona asigana lacagtiisa waa xalinay waxaan leeyahay Ashraf Hakimi ku soo dhawaaw kooxdan maanta dhisooyo maanta waa agentigiisa tim mesh kuma haye bal waa Ashraf Hakimi waa keenay booska duwa hadda saas ku xaliyay oo yarkii Henrik waa ka bixiyay daaficina uu noo sheedan yahay mafaante laakiin anoo iska warwareegaya marka waxa habay mucjisada tahalaya waxay tahay Manchester United waxay iga soo dalbatay Andre Silva oo noo dhimay wuxuu ku soo dalbatay 7 milyan iyo lagu soo diray Marcus Rashford ma diidi karay waa aqbalay 5 sano ka siixday 200 kun si isbuuci waxaan dhahay Rashford ay shab soo dhigay geeska ka soo gal marka hadda sheekadu waa cakiranta mafaante sababtoo Rashford garaba joogo waxa kale oo joogo Werner garaba joogo waxa la dhunkan kale Dominic Szoboszlai garaba joogo dad badan oo garaba joogo marka oo left winger wada dheelaayo marka left winger kan wallahi ma aqaan waxa ku sameey doono marka inta aan waxa iska fikireynay waxa waaye press conference ugu horeeyay imaanay oo waa superkaabaha ku horeeyo waxa bixinaa Bayern maadaama xoog iskaga superkaabaha sanadii ugu dambeeyay qaadaan maleenaaba waxa waaye wariyaasha xogaar waxba ay weydiiyeen indhaa u shataxana Bayern meel saari kara amal faante Red Bull Arena ku dheelayna waxa ay umaleynaa sanadka hore idin qaaday kii kasii horeeyay qaaday Ashraf Hakimi first impression tray loo dhiibay ninka awaaye kuligiis ugu horeeyo safana aykan waxa uu safanaya yarkan loo yaqaano Tremigan wala ma aha laakiin Tremi waa arki jiray FC Porto ama ku arkay wax soo maleyna waxa leeyahay ku soo dhawaada garoonka Red Bull Leipzig Arena Red Bull Arena waaye ay ku dheelo kooxda RB Leipzig kooxdaas liishay 2009ka iyadana la aasaasay koox yar ama dad badan aan ka weyn wallahi saasay taana 2017 markii amaatay Bundesliga waxa waaye waxay kabta la gashatay Bayern Munich soo tigtaaninta labaad ee ku dhameystay waa adagtahay ilaa hadda Champions League kama baaqado waa joogtaa marka kulankan hadda iyada noogu horeyso daqiiqada ugu horeeyay Dominic Szoboszlai cuniga garabka aan dhahay asna waa garabkiisa oo cariirsanooya asna waa kaas gool naga cunay laakiin Thomas Muller goor nagu helay laakiin waan ka qabanay dhibka jira wuxuu yahay daafacyada way ka soo gaaray waayeen kubadii golaha jilibka ugu dhacday Thomas Muller ku laabatay Thomas Muller sidiisa ugu soo celiyay hadda waxa arkay asoo Man City u sii babooteena kan horta af in laga sharooteelay ma si kala malaa wala ma musa wallahi waxa waaye weerarka anigan waa kana waa soo laakiin waxa arkay waxay tahay Rashford hadda gool wadali laakiin dhibka jira arkay waxay tahay weerarkeena sida hore ma Marcus Rashford hadda noo waa dheelsiino ya Werner garab dheelsiino Vande Wernerka marka garabkiisa galab waa ninka finishingkiisa aad u xun yahay Rashfordna noo ku fiican garab waa dheelsiina marka waxay noqonaysaa suuqa January marka gaarno ina aaraasado noobo dhameystiran oo shub ina aaraastay noqonaysan talamaan Arthur Rigor micnaha la u gudubtay aniga Rigorada midna kood waa dhalinay Bayern waxa uu tuurayo Tremi waa dhaliyay asna mid qurux badan oo dhaliyay wallahi laakiin aniga markaan waxa noo tuurayo yarkan Timo Werner waa dhaliyay asna Bayern waxa uu tuuraya Umalayna Sadio Mane come on Sadio ay birta ugu dhacay Sadio Mane waa birta ugu dhacday laga hayaa markaan aniga waxa noo tuuray Christopher Nkunku asna birta ugu dhacday isku dabdaysan Umalayna kuwa kana Leroy Sane asna waa kaas Leroy Sane ka qabay no wallahi gool qurux badan ayuu lacag qurux badan Leroy Sane markaan Dani Olmo okay asna waa dhaliyay يا كلا توماس مولر بليز توماس مولر لك خا والله وخسلا let's go توماس مولر لو رجع ولا تلو ولا يغبط
aniga waxaan noo tuurayaa Amadou Haidara bananka waa bananka u qaadno superkaaba ma fahantay waa pressureki saarnaa in ama laga qabto waxba isma dhin Afrikaankan Amadou Haidarahan wala cunugan shubay real life ku arkay shubay gameka mar badan ku dheelay koox badan aan wato aan soo gatay waa shubay saas markii superkaabi aan ku qaadnay koobkan ugu horeeyay oo la qaaday kooxda isbuucan la xasuuqay ee RB Leipzig marka waxaan leeyahay bal RB Leipzig horta waa fiican tahay laakiin wax ka weynaa galan faantay waa masitoo ka wad badan tahay teeda kale halan intii la geenay halan waa taqaaniin lama aasacdan leedin sheega marka suuqa January waa la imaaday January marka waxaa rabnay in aan xogaa wax xoojin ma faantay inta xooj islahayn marka garabkii kale oo yarkii garabka noo dheelayay anaga dhaawamay garabka bidix right wingerka marka waxaan 5 sano heshiis aan ka siixday cunugan loo yaqaan Sergio Gnabry oo markaas Atletico Madrid joogay Real Madrid oo aandhe Bayern Munich uu ka tagay ankaasi magaalada Madrid oo aaday waa lacagtiis waan ka siixday 200 aandhe 154 ka saaray Malena 154 ka saaray waxa waaye waxaan dhahay ay Gnabry ay projectinga awatani oo magala qayb qaadatid waga aqbalay uu soo galay kulankiisa ugu horeeyay wuxuu safar doonaa kulankan loo yaqaano isku baxayaan RB Leipzig iyo Borussia Dortmund kulanka marka kulamada ugu muhiimsan horyaalku ka mid yahay go'aanka hoggaanka hayna 12 dhibcood oo ku haynay faante kulanka marka inaa badan waajib ay nagu tahay sababtoo kulamada waaweyn hadaanan bananin waa xawaa faa'iido malaan Marcus Rashford 4 gool uu leeyahay faante 4 gool uu leeyahay waa ninka xogaa waa socda kaalashadana ku jira markana waa kana Marcus Rashford waa laga qabtay laakiin waa kana Sergio Gnabry asaa ku celiyay oo daqiiqada 22 daqiiqo ku qaatin oo gool wali kooxda cusub malid RB Leipzig soo xirno gool ku dhaliyo waa ninkii waa ka wareertay meelo orduya celebrationkiisa ku turtay marka ninka hadda garabka waa xawaaye arinta garabka naga xaliyay asi iyo maxaa kale la dhahaa iyo yarkan kale Ashraf Hakimi labaduba naga xariyeen markana waa kana Werner asna gooshii labaad oo noo dhaliyay waa kooxda xogaa u toosanta laakiin wili booskii oo like number 9 kii wili ma hayno number 9 kaas aan helin horta waxa waaye wax jira maan January imaanay nin wax kale soo qabanay Victor Osimhen waxa waaye ninka abaara raadiyay ninka kaliya oo u qalmo ahaay positionkaas ma fahamtay maadaama hadda Champions League ila imaanayo iyo wareeg 16 la gaaray groupkeena kaalanta labaad ku soo baxnay koowaad waxa ku soo baxday Real Madrid wareeg 16 waxa ku aadnay kooxdan la dhaho Chelsea lugta koowaad waa laba soo galnay lugta labaad daqiiqada 7 iyadoo la maray Victor Osimhen goolli ninkan hadda imaaday waa la ceelay wallahi markana waa kana inuu ku dulqaado isku dayay goolaha qabtay uu ku celiyay Victor Osimhen soo u imaaday kooxda isbedel weyn ka muuqda dhankaas iyo goolalinta iyo Marcus Rashford na garab ku fiican yahay waa ordaa maanta oo waa soo socdaan faantay talisaas uu soo tilaafsanay 4 uu soo tilaafsanay isla London uu ku soo laabanay 2 usbuuc ka bacdi waxa uu baxuna Tottenham ama Sports taqaaniin kulanka waxa malayna quarter final waaye kabtan waxa noo wato Osimhen kabtan noo wato markana waa kana Gnabry sanoo bilaabay goosho koowaad 6 daqiiqo ku qaadatay kulankeena koowaad 2-1 ku soo badinay aan 2-1 ku soo laakiin inuu 1-1 ku badinaa dhahe kulankan halka la ugu darnay 2-1 Marusa markana waa kana Harry Kane asna gooshiisa waa soo celi kooxiisa ninkan wallahi miskiinkan waa kana xawla marka arko inta gool oo dhaliyay koob ma qaadin macquul ma maskaxda binaadinka ma gali karta markana waa kana Osimhen marka daqiiqadii 24 wuxuu dhaliyay gool aan dhigi karo goal of the season yaa xiliyaareedka goosh ugu quruxda badnaa 4 ciyaaryahan oo Tottenham ku soo dhax qaatay baanti oo gool ka dhaliyay markana waa kana Nkunku laakiin asna waa kaas ay gooshii saddexaad laakiin ninkan qaab ciyaareed fiican ma wato wallahi qaab ciyaareed fiican ma wato Nkunku si loo maleynayo ma ahan waa waxa umaleynaa basidan waxa la dhahaa umaleynaa one season wonder in la dhahaa umaleynaa saddex halkaas aan goraanay aggregate-kana 4 hal aan goraanay semi finalkii waxa isku soo aadnay Bayern and Barcelona oo ayna Barcelona Champions League semi final shaqo ma ku lahan waa xogaar mucjiso waaye laakiin iska dulqaata BK wali kabtan way marka Barcelona hor imaatay ay kulan koowaad 2-1 ay soo badisay faantay kulan koowaad oo kaamna u aadnay kulankan la isku soo laabtay waa kana Osimhen laakiin gooshii waa waaye waa la soo celiyay markana waa kana la soo saaray Christopher Nkunku asna waa kaas uu soo bareejeenay Nkunku soo bareejiyay Barcelona hadda markii aan ka soo bixi karnay waqti sababtoo atmosphere-ka waxa joognaa Red Bull Arena joognaa garoonkeena ma fahanteen garoonkeena marka aniga joogno wax naga dhahay malahan markana waa kana Nkunku wuxuu dhaliyay gool aan isleeyahay oh my god wow bidi waxa islaayba koodi bidix cagow tuuro islaawuna khasaarna ninkan lugtiisa bidixda ma fadhida moogtahay
bidig loo aaday faraha lagu tuurano taageersana walaani kan si loo tuuro daadi anaaba ka helo kubadda bismillah goosh ma u baasa isla goosh ma u baasa meeshaan ani BK baldi ilay maanayaan markii la waa qaldeen kubaddan waxay u dhiibeen kiya lugta gashay Osman lugta gashay asna banaanka soo dhigay Rashford dhaliyay Rashford ama wuxuu ku tuurtay si kala mutakhariide awaaye celebration Ronaldo ku tuurtay ba marka Barcelona saa ugu soo baxnay marka finalka insha Allah ta'ala xarjeynayna koox xoogaa yar oo fiican oo aan iska celi karno fahant inay noqoto rajeyna sababtoo ay finalka hadii aan tagno koox weyn nagu soo aad Bayern iyo ande Bayern Munich xasadin ugu soo aadaan Real Madrid xanuun waa moogtaa waxa uu sii afreeyay Victor Osimhen uu sii afreeyay oo aan dansigiisa ku tuurtay asaga Afrikaan fahant isku sii tuurtay saasa marka waxay noqotay inaan final ku imaano waa 4 iyo eberkaas oo hadda aan ku badanay 5 iyo 2 aggregate aan ku badanay horaalka wuu dhamaaday horaalka waxa waaye wuu naga galbaday sababtoo horaalka waa ka gaari weyn Bayern Munich way la fakatay horaalka kulanka hadda finalka Atletico Madrid oo buxuna finalkana marka waxa rabaa inaan saadkeeno faante koobkan hadda qaadna Champions League ee qaadan faante waxa waa koox walba Europe koobka u tartan Champions League waa iyada hadda qaad horyaal waxba nagama galin dhib malaan iyada iyo barkaaba hadda qaad labaas bis waa boqolkana waxa waaye lugta kuwada ku harnaamleena فهمت markan waa kana weerar waxa la siiyay weerar la isku soo qaada barti la isku dhufto wallahi wali waa kana laakiin Madrid ma fis Depay wali wato Depay laakiin goolaya ka badbaadiyay markan waa kana waxa la weerar hada adig aad qaadin laakiin oo khasaarinaysiin 4 daqiiqo ka bacdi ama duu haydaara finaalka goosh ugu horeysay noo dhaliyay celebration ki soo ku tuurtay fahmtay والله يقول قروح بدنا بديحو كتوري لكن بديك بايه بديحو كتوري هرت قدح ومعمولة وحوا علينا نكان هرت سيدك أو ماي جاد واو راشفورد وات جول بسم الله راشفورد وحود لي والله جول آن إن بعاديهن واو جوش ده جول اوف ذا سيزون تنا بقدرنا عملنا كل المدعاء ما غيرت المدعاء عادي ديك بد iyadoo khaqabanayso Depay xaalada ishaan kale xalaniyo Argentina lama joogin fahant gooshii saddexaadna waa kan amaleena Victor Osimhen banaanka soo dhigay Marcus Rashford 3 daqiiqadii 45aad 3 kamis lagu maray ciyaartana I think asoo ku soo dhamaatay sababtoo 3 gool Moumbalina inay ka soo laaban karto dadkan final hadda imaanto waa ogtiin nasiib ma lahan si ku soo dhamaatay so insha Allah ta'ala asbuucan waa ujeedaa waa dhisnayo oo waxa waaye anoo baleeyro badan soo saxiixin kaliya waxa soo saxiixay Osimhen Rashford aan ku badashay iyo Andre Silva ku badashay iyo yarkan kale Ashraf Hakimi جنبي أفر بلاير بس على صوص صحيح ما فهمت عيارتي تنتي كور أسبوع كور سنة ضدنا على صوص صحيح عقبنا خسارة ثم إن شاء الله تعالى أحرجنا في ذا نكير دونتين حد اللي هاي في ذا سنة وكل إن شاء الله جمعوا الباصوري قاعد كل سبت سبسكرايب لين وصبير وحي أدي قاعد يودي كذا معلومات إن شاء الله تعالى كومنتي يودي في ذا متكلم تجار حد اللي هاي خير بدن إيو goodbye